السلام عليكم أصحاب الدمات وعليكم السلام أنا هبين بيت دمات هبين كنت هبين ونكسن فضلا مركلة هدي أنا سبسكرايب كرينين حيلوين إن السبسكرايب كريسي جنالك فيديو جهر وحن كل شيء إني هدا دعوتي إنه سفر عصب اللوني طبعا يوتيوب كان وسيجر لكن وحويان مركل فيديو كلا أيو كصاب سنة نورمالي كل بوحي أو أنا مالي إنه مهم yahay uu ku saabsanaa laakiin aniga waxa igu jirtay fikra inaan trading mar bilaabo marka laakiin aan information igu filan hayo tusaale wadankan aan joogayo waxa weeyaan inta badan dadkan halkan jooga wax badan kuma fahansiinayaan laakiin waad ka dareemi kartaa yani casharadaas way qaadanayaan way wadanayaan cid wax ku sheegaysa malaha laakiin adigaas baa la rabaa dad mar waxaad dareentid inaad baaritaan ku sameysay si aad u hubsato marka ugu dambeyn go'aankaas inaan trade gareeyo waan qaatay maalintii aan darsiga bilaabay laakiin video han inaan ka duubo oo safar kan bilaabo oo ila bilowdan hadii qof rabo inuu trade gareeyo haduu jiro isla sii bilowno because aynu iscaawanayna hadii kale qof taageerayna u baahnaa inuu saa ku wadno safarkaas shalay oo go'aanka ahaa videogaas horaan ku soo bandhignay anyway wadaawani kartaa videogii hore insha Allah xaflaan information wanaagsan aad ka heshid waxaan maanta ku talagelayaa caawa insha Allah ka bacdi casharadii iyo waxaas iyo hadana mashquulkii because adiga dhan yani arday baa tahay kala trade maahan waxaaga salaanada aan medicine ma nigtaa because waxa weeyaan wax qabanaya maahan somehow markii aad waqtigaaga isku bandhigtay iyo saad u haysid finally anyway intaadan seexanin ka hor inaad wax eegta ama intaadan tegin ka hor oo kale hadii aad waqti wanaagsan hayso oo kale aad ka wanaagsan hadii kan inaad isku filaysiiso waad kartaa anyway waxaan isku dayay insha Allah inaan fiiriyo bal analyzing year baan fiirinay sidaan hore idin ku sheegay waxa weeyaan channelada inta badan aan fiiriyay ani hadii aan helay hal channel oo wax un analyze kareynay analyze bisata wallahi class kuma beeran yani ama class ma eegan classii waxa kama fikiran because qofkan analyze kareynay mar walba wadada uu analyze kareynay shay waxa la mid tahay inuu hortaada wax ku practice kareynay qof mar walba qofka haduu hortaada yani ilmaha yar wuxuu luqada ku bartaa ku hadalka hortiisa lagu hadlay mar walba وانا sida ugu qurux badan u barto luqada yani qof walba luqada barta waxa ka yaqaan qofka native ka luqada waxa sababta wax kale ma qofkan isaga ilaa yagiis waa ugu dul hadlay saas buna mother language ama tangnami bay u bixiyaan qoladaas sidaas yani si lamida ani hadan helay kanaal dhan yani qof dhan oo isagu marka uu video soo dhigay kala analyze gareynay really ani kaas ma ku biirna soo saartay waan waaye waxaan raniyo haduu xataa jiro oodan ogeyn fadlan adi iska kamid noqon yani hadii kan ugu bahore so inaan analyze gareeyo analyze-kiga mar walba khalad uu noqon karaa mar ku doon sax noqon macalin mi saas inaad la socotaan waa muhiim so anyway insha Allah waxaan isku day inaan fiiriyo analyze-ki hore waxaan ku analyze gareynay head and shoulder-ka inta badan waxaan idin sheegay beerka aan ugu jecelahay inaan ku analyze gareeyo inta badan waa GBB Japanka because isaga beerka xataa head and shoulder-ka isaga aad ugu shaqeeyo aan intaan ka arkay salaanadan ku soo tijaabiyo meelaan hadan online kan down trend buu ahaa أنا هالكاس هدان هذا كقبص line as you can see head and shoulder بنقول أوكي سيداس يعني تسولان line كان هدان كديكتو support and you see إنه كروك عسان sell صار نقضي and then مركو line كباسكري line كان support كديكتو إنه resistance إنه قضى هذا سعركتي the same time مان كو باسكري إنه again إيه هذا support يعني so the moment وهالكاس باسكري وحن أني أن كنت لقلي سدان على محن trade سدان نكون كلا probably تسولان وكان أوزو باسكري trade sida noqon karo kale and then push saas oo kala as you can see waana ku yahay oo kale yani because resistance aan ku yahay at the same time hada meelahaas oo kale maadaama uu ka soo noqdo kor u noqday halka hadan line dhigto tusaalahan line-ka iska ma dhigaysid waa inaad tijaabisid mar walba tusaalahan hada line-kan halkan dhigayo dib hadan u noqdo as you can see waa la tijaabiyay halkaas yani support and resistance marbu ka ahaa yani again halkan again probably meelahan iyo meelahas marka as long as online ka door jeer multiple times ama wax ka badan double times la tijaabiyo kas clear buu sii noqonaya am garan that's what I need kartaa sanada online ka waan soo hadlaynaa mana iska dhigani as you can see right now wuxuu noqday kor and then uu soo noqday so the moment uu soo noqday waxaan garanayaa inuu kor u kacayo so kor uu kacay meelahaas inuu ka soo noqday and then hoos buu soo dhacay that means line can you dib u soo jaray as you can see line can halka aan halka dhigay oo kan
waxaan wadwada waaya line ka aan ka hadlay so halkaas baan dhigay hadda line ka you see markii hore maadaama halka ii yaalay aan madowga ii dhigay halkaas ii yaalay line kan korba u kacay as you can see madowga kor fiiri kabacdi uu soo noqday meelahaas ka soo noqday then korba u kacay aan xariiqo as you can see here then again korba u kacay then hoos that means uu soo jiray again so line kan uu soo jiray waa line ka meelahaas ii yaalay see then as you can see right now hoos line kan marka wuxuu noqday again resistance as you can see line kan markii hore marka support ahaa uu ka noqonaya hadda resistance weeye so you can see still support waxaan ka wadaa resistance ku yahay so the moment uu ku dhufto confirmation heshid inaad hubsato inaa horta yahay bahalkii line saxsan ka bacdi waxaad sameynay markaas inaad support ku dhufato so line kaas muxuu sameysmayaa hadda tusaalahan and trend arrow line halkaas ka soo dhigo ka soo qaad in line kayga ahaa yeah so we soo jaray soo maahan see support resistance way noqdo ka soo noqday yeah so the moment uu halkaas soo jaro waxaan sugayaa mar kale inuu halkan igu soo dhufto because halkan markay igu dhufto because marka waan huba because that line kan soo jaray ma garanayo line kan dad hoos buu sii socon karaa kuwa expertiga aad weydiin kartaa expert miyaa then ani waxaan sameeyay marka ka bacdi waxaan line halkan buu ku soo noqon karaa so line noocan aan sameysmi karaya as you can see line noocaas tan hoos buu soo dhacay so probably meelahaas oo kale maadaama halka ka soo noqday markii hore meelahaas oo kale inaad iska qabsatay because mar hore oo kale waa la tijaabiyay as you can see meelahan oo kale you see so that's why somehow waxyaalahan ugu jeclaan line kan aan u jeclahay head and shoulder ka inta badan beariskan isku mid ah waxyaalaha kale bearisyada kala tusaale bear kale waxa jira bear kale inta waxa jira bullishka iyo waxaas ku shaqeynaya inaad fiiriso tusaalaan sida triangle ko kale iyo waxaas ku sameysmaya symmetrical iyo maxaan ku wadaa rectangle ki iyo bullishka iyo waxaas hoos u dhacay korna kor sida so waxaas kuwaas inta badan anigu ma arkiba kan GBB manaaminkan GBB baalka kuma arkin laakiin hadda line kii uu eego kala arkaa let me say this one as you can see line kan wuxuu u eg yahay laakiin mid kan baa sii xumaynaya hadda dad sanahan uu kan jiri lahayn oo kale line kan wuxuu noqon lahaa head and shoulder laakiin se abu noqonaya ikaadi bearish baan umaleynaya why because hoos buu ka soo bilowday see it was yani kor inuu soo kacay fiiri and then the moment halka inuu ka noqdo kor then hoos u soo dhacay soo qad markii halkan so that moment line kan oo kale inta badan hoos buu dhacay laakiin kan ba ayaa soo dhax galay sida means ma noqon line kii arabne anyway head and shoulder kan soo tijaabiyo dhowr jeer head and shoulder ka aad buu u shaqeeyaa kan asimta waxaan umaleynaa inuu gold ku shaqeeyo laakiin ani still ma hubo inuu gold xaraan iyo xalaal u yahay so waan iska dhaafay anyway kan aan si analyze gareeyay yani head and shoulder ka marka aan ku soo analyze gareeyay ayaa waxaan haddana isku dayay inaan ku analyze gareeyo qaabka rectangle ko kale because rectangle kan inaan fahmo aad baan ugu baahnaa rectangle kaas fan shaqadiisa lagu jirjaa inta badan so rectangle ka hadda waxaan umaleynaa inuu ahaa meelaha u dambeeya rectangle let me see line rectangle oo kale hadda probably this can be right yeah noqon karaa maxaa diiday line kan fiiri line kan waxaan dhihi karaa rectangle ma adi fiiri bal ani tusaalahan haddaan hadda u sameeyo bal triangle bahalkii and trend line u sameeyo saan u fiiri hadda meesha line kan dhigay waa khalad laakiin anyway ku talagal un tamam meelahaas bay dhig and then again line ka kale aan kan u isticmaalo and yeah I mean waa laga qurux badan yahay laakiin kulli resultiga way
بس كميت بكين لكن ولا يقرح بدنا سي أسهل شغل هذا سوق قرح بدنا فيه هذا المسستنس وياه في دافع سبورت سو آد بنرجع هذا يعني هذا حنا يعني USDC أشوف كله بتشح لي أنت بدل ما يعني رجل هذا هو مشقية أو I don't know so GBP Japan يعني حيل رجل هذا تكون أكسنت كلها تنلي GBP Japan آد بقول أكسن يعني أنت بدل يا أنا trading 6 ولا أنت بدل كلاسك و GBP Japan so let me go هذا الله تريد كماشة ومري وقت حاضر كنا نايو هرت أنت هذا كل خاقين واحد مرة بس كفيرني فوركس فاكتوري يعني هذا هو حمان تشيله because شلي وكله حاجتي جابان بنكي هذا الوحرة إن بدنا حتى أنا ما خسارة you know because ما تشكرين يعني واحد بعد يكره أنت اسمك هو fundamental من analyze ولا إن المركز أسكافي رزق fundamental analyze ويوناكس أنت fundamental analyze حقيقة الناس بيسووناكس أنت مركز هاي لو يفضل يعني هذه analyze كرينيس ومركز إسكافرو fundamental analyze and then you know كبعد مركز بيريس كأفيري على ربتين نورت analyze كريس ما أنت واحد شيء في هذا وقت دكتورات so as you can see هذا كان لاين كان واسي أركي مركز وحن اللاين كان إنه هو إيجاي لاين كان هو إيجاي like لاين كان rectangle bullish أيوه إيجاي why because host also ده as you can see فيري wait a minute see meelahan buu ayuu line kale ka dhacay tusaalahan marka asaga meelahan ka soo dhaqaaqay ka soo qaad and you can see uu ku soo dhacay this line ka noqday and then uu ku dhuftay mar kale so 1 2 3 now 4 5 now right hadii aan dhaho 1 2 3 4 5 markan afraad marka waa ka baxay so halkan 4 ka meelahan inuu kaga yimid ka soo qaad 4 ka halkan buu kaga yimid because line korbu soo socday markaas markii ugu sareyso kareelkaas ku soo dhuftay anyway line kan soo eegay waa aragta and then ka bacdi wuxuu sameeyay ka baxay you can see uu ka baxay line kaas so aan dhaho bahalkii waxa ii sameeyay meelaan support here so line ka support ka meelahan aan ka qabsado probably waan fiiri inuu halkaas ka noqday inuu ku dhufto looks like inuu soo dhaafay laakiin still ya confirmation aan ku siiyo because hada waxaas fake buu noqon karaa I'm saying line-ka noocaas oo kale ah haduu kaliya iska soo dhaafo aad xariiqa yare dot-dot-ka aad aragtid ayaan ka dhiganayaa hadda support tusaalahan supportigaas waxaan ku aamini karaa the moment uu hadda line kale عسان بقى هذا سلك وصورة في كله لكن still واحد عدينا كومسينة لاين كبس هم بصورة تحسدي إنه وسكان خنكرا and then وحسكان خنكرا باي لاين كاس so now as you can see هذا هو السل عادي لاين كاس السل عادي أو confirmation كان واحد زده so probably لاين كان هذا إلا وحصور إكرا ملهن دور شيرو كان نخذه ملهن probably ملهن أكلو وصور فنكرا so anyway the moment هو halkan ku soo dhufto still waxa haysta chance marka aad buy ku dhufanayso so meelaha ugu soo dhaco right think makes sense now again fadlan hadii aad rabtid sharaxaad iyo waxa raadi meel kalaasa ama raadi macallin aan kala taana qof practice kareynaya jeclaysta inuu soo bandhigo practice kareyntiisa marka haku cajisin haku manaamin ani ila practice kare ma kulli dad karnas ila shirkad that's all lakin hada rabti inaad wax barash aan u socotid I don't know waa idin baari doona insha Allah macallimiin Soomaaliya waa raadini oo maxaan dhahay kulli forex dad yaqaan Soomaaliya lama waayay ila tahay ani ma aqaan Soomaalida taqaan laakin waa probably waa la heli dad wanaagsan baa la heli insha Allah video ku xiga aan isku day doona inaan baraadiyo hadii aad u baahan tahay ard macallin weeyaan كل يوم ما لين يقف إنه volunteer كوب بيحن 10 forex because قف أو برتا forex يدونك page بفري أما I don't know somehow كبعد العقبة أنت بغانا قديقا لكن قف volunteer إن شاء الله وحكو بحنا ما واي سيد برنتيني دونا إن شاء الله لكن أنا هذا كلاسة عندي كان يوحى سؤال عك
so يعني online ma ahan waa class caadi haddaad helayso class caadi ka wanaagsan because online-ka waa laga wanaagsan yahay dad class agtaada ku yaala helaysid fadlan kaa tag kaas aan kugu talin lahaa xaqiiqatan because kaas you know qacantaada iyo waxaaga baad kula wadwadi macalinka you know what I'm saying so kaas baan aniga kugula talinaya haddaad helayso saas line-ka haddaad arkaysa hoos buu usoo socda so probably inuu meelahan kusoo dhufanayo u eg tahay line-kan the moment halkan ka noqdo you have chance ood ku dhufato sell waxaan ka wadaa buy see here line kale oo sell ah halkaas misna line-kaas uu soo jaray confirmation buu ku siiyey sell dhammaystiran waaye an halkaa line dhigto tamam so as you can see now man kasoo dhaqaaqay line-kaas line-kaas supportive oo hayso waxaan ka wadaa resistance oo hayso probably meesha uu ku dhufan karo halkan wuu kusoo dhufan karaa si dhowr jeer buu tijaabiyey meesha uu kusoo dhufan karaa bartaasna wuu ku dhufan karaa because dhowr jeer buu tijaabiyey halkaasna yeah because halkaa wuu tijaabiyey bartaas meelahana wuu tijaabiyey again halkaas wuu tijaabiyey yeah halkaasna wuu tijaabiyey so again 2 times double wax ka badan weeyaan wallahi na hubo so at the moment mar labaad halka ku dhufto sell kale ayaan rajeynaya tusaalaanta line noocan inuu samaysmo meelahan uu kasoo noqdo kabacdi hoos sell kale uu soo dhaqaaqo so sellkaa kale meeshu dooni uu kasoo noqon karaa probably meeshu hadda kasoo noqdo kale inuu kasoo noqon karo kasoo qaad laakiin halkaa markuu kugu soo dhufto you have chance ood sell soo dhahda mar kale you know okay whatever fiirin inuu kusoo dhaqaaqay no still buy kor and still see inuu hoos usoo dhaqaaqay laakiin tusaale ahaan buy buu kusoo socday so yeah buy buu kusoo socday and ilaa halkaas buy buu kusoo socday so the moment line-kan samaysmay maxaa candle-kaa samaysmay candle-kan kale casaankaa samaysmay sida ka weyn so kan xataa waa macno kale ku tusaya inuu line-kan hoos u dhaqaaqi doono so I hope inuu line-kan support ahaado inuu resistance ahaado laakiin hadda inuu ka gudbay buu ii sheegaya but let's see confirmation inuu na siiyo we still don't have the confirmation yeah aku khaldaban line-kaas intaad fiirisid adhin kan durbaad bad support uu noqdo kor buu kacaya adhin u kaadi hadduu halkaas hadda confirmation line na siiyo cabsi la'aan waxaad samaynaya halkaas buy kaga dhufo because line noocan aad samaysmay hadduu bartaas confirmation na siiyo line noocaas oo kale probably meelahaas meeshuu doonaya kasoo noqdo laakiin again inuu halkaa ku dhufto markaas kor u kaco probably weliba meelahaas and that's cool man hadday dhaqaaqmad confirmation weli nama sinin laakiin waa eegayna si waxaa jirta laba jeer labadaba waa khasaari kartaa haddaadan qorshe lahayn labada dhinaca waa khasaari kartaa yani inta badan inaad garanayso inuu kuu qorshaysan yahay hadda tusaale online-kan wuxuu noqday hadda kuu supportive uu noqday sidaad moodo confirmation buu ku siiyey so probably
kor ayuu u kacay linkan ku socon kani waxoogaa support inuu ku haado waa rajoonayaa anyway waxaan ku sheegayaa haddii halkaas line kale weeyaan so ma dhihi karno marka kan support inuu kan resistance inuu ku ahaa online kan halkaan eegan in halkaan eegnay ahayd yeah possible marka halkan kaga soo dhuftay then asaan sell back up then whatever adi waxaad sameyn insha Allah inta badan waxaa jirta dadka inta badan waxaa jirta inay laba fursadood labadaba waayaan inuu khasaaro at the same time fursadii kalena uu waayo yani hadda tusaale ahaan inaan halkan markaan taagna inaan khasaare lahayn kasoo qaad because inaga down baan ku talagelin inuu bartan kasoo noqdo support linekan uu isticmaalo support laakiin waxay ahayd inaan linekan aan halkan dhignay kor u qaadno oon halkaa fiirin ayay ahayd because halkaas uu kasoo noqday very up buu noqday then down meelahaas down then again up uu soo jiray marka barta inaan lineka dhigan ayay ahayd so kasoo qaadba inaan khaldamnay oon halkan dhiganay amaba inuu lineka because cid hadda ku dhigi karta totally macalin expert whatever qofna kuma dhigi karo boqolkiiba boqol sure baan waxaan ku dhaqaaqay cidna kuma dhigi karto so haddii aad tusaale ahaan aad ku talagashay inuu saas oo kale ahaa the moment uu kaaga kasoo horjeedsado halkaa marka inaad sii calaamayso dhahdo hadduu against linkan against igu noqdo tusaale linekaas inuu markuu halkaas gaaro aan qabto oon markaa buy kaga dhufto oo kale marka kii xataa waaya wuxuu sameyn kaas buu iska cancel and then markaas inuu fail garooyo ku isku arkeen no sidaas ma totally waxaan dhan meesha ku yaala looma design kareen inaad mar walba khasaarto mar walba inaad guuleysatana looma design kareen kalaata waxaan meesha u yaala inaad marna guuleysato marna aad khasaarto waa caadi laakiin inaad marka aad khasaarto kaban karto wad guushana arki karto because meel ay khasaare bas yaala ma jirto yani guushuna istin akawarin tusaalahan markuu lineka dhinaca kasoo horjeedsado dhinaca kale u kacaya marka waa inaad adiga sii dhigatid boos kale tusaalahan hadda linekan markaan marayni haddaan dhihnan hadda linekan bartan markuu soo dhaqaaqo halkan markuu soo gaaro wuxuu sameynayaa wuu dhaaf yani dib uu soo noqon maayo dib uu soo dhacaya haddaan dhihi lahayn may dib uma soo dhixin kor buu u kacay so hadda tusaalahan linekan waxaad moodaa inuu yahay ascending line ascending linekan siduu u sameysmay probably ascending line oo kale inuu u egyahay kasoo qad so waxa weeyaan wuu ku dhuftay wuu soo noqday again wuu ku dhuftay wuu soo noqday markii saddexaad uu baas gareeyay see markii shanaad uu baas gareeyay so yani waxaan ku sheegayaa inaad labada marka hadab kaa soo horjeesan lahaa oo hoos soo dhaqaaqi lahaa inaad haysan lahayd probability-ga maxaan ka wadaa background-iga aad isku difaacayso ee hadduu bartan soo dhaafo calaamadda dan inuu markaas ku noqonay calaamadani support inay ku noqonayso dan up ay kusoo noqonayso oo kale inaad sii haysato adaadii kusii talagashaa oo kale inaad haysato markaas because waad soo kabani kartaa and then yani wixii markaas kaa khaldama at least waad sixi kartaa so yani cid aan marna khasaarin ma arkin tusaale ahaan markuu maxalinka dhigay sometimes oo cashar ka dhigaya ayuu against ka noqon karaa lineka again yani waa inaad xasuusnaato mar walba in linkan cidna aysan hubin waa inaad taa xasuusnaatid asxaabta insha Allah ani maanta halkan bay u ekaanay because probably lineka sidaan sheegan ayuu noqday halkan hoos and then up as you can see okaas inuu linkan aan support u isticmaalno kor usoo noqday dib usoo noqday then up see linkaas so insha Allah ani waxaan isku dayi doonaa inaan sii wado because videoga ayaa sii dheeraanay haddii kale dhammaantiin waxaan idiin rajaynayaa khayr fadlan qofkii trade kareynaya fursaddan helin aad buu wanaagsan tahay dhammaantiin waxaan leeyahay habeenkaadin wacnaada fadlan ha iloobin inaad mar kale channelka subscribe karayso hadduu videoga kugu dheeraaday waan kaa raxli gelinaynaa noona sheeg sida ugu wanaagsan aad u arki karto videoga in loo dhigo because anu waxaan rabaa total in analyze-kayga ku saleeyo and by the way mid aan idinku daro qaybta signalkaan idinku daro signalaha haddii aad fadlan haysato ha isticmaalin yani signaladaas u isticmaal basaata inaad isku waafajiso adiga predictigaaga iyo predictiga signalka ninka expertiga macalinkaaga signalka ugu wanaagsan soo dhigo qaado ha isticmaalin adigu waxaad samaysaa dhig oo adigu prediction samee baad prediction kaaga la qaad signalka la sug yani signalka ku soo baxay eeg fiiri tusaale
dan signalka iyo predictionkaaga isbarbardhig haddii signalka sida uu macalinku u sheegay predictionkaagu noqdo believe in me waxaad develop garanaysaa skillkaaga arrinkaana waa arrin aad u wanaagsan adi xataa because mar walba macalinku kulma joogaya marka arrintaas waan ku celceliyey waana ku dhihi mar kale insha allah waxaan ku rajaynayaa khayr dhammaantiin asxaabta inta videogeena like garaysay waan u mahadinaynaa kuwa subscribe gareeyay waxaan leenahay fadlan taageero haddaad tahay si fiican taageeraha uga soo bax haddii aad tahay qofka baranayna insha allah adiga xataa nala wadaag waxaad garanaysid aanan garanayn insha allah dhammaantiin waa idin salaamaya mar kale